وعن wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena subaxnimada waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo lagu soo oogay fal dambiyeedyo iyadoona looga yeeray xarunta xalan ee magaalada Muqdisho Roble ayaa loo haystaa eedeymo ay horay uga gudbisay dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan filla Soomaaliya iyo sidoo kale hakinta doorashooyinka musuqmaasuq iyo in qayb ka mid ah qoyskiisa uu ka buuxiyay dowladda Ra'iisul Wasaare Roble arrimaha loo haysto inta kuma eko waxa loo haystaa kulamo uu la qaatay Imaaraadka iyo dowladda Kenya oo baaris ay ku sameysay hay'ado international ah ay ku ogaadeen in loo adeegsanayay burburinta dalka qaramada midoobay oo dalka qarash iyo waqti badan uu ka galay ayaa baaris ku sameysay Ra'iisul Wasaare Roble iyadoona ay kiisas badan ku soo baxeen haddaba maxay yihiin kiisaskaasi loo haysto Roble goorma ayaa la geenayaa xarunta xalan ee looga yeeray maxay noqon doontaa waxyaabaha looga baahan yahay Ra'iisul Wasaare Roble barnaamijkeena ayaan ku faaqidi doonaa qaraxii ka dhacay magaalada Boosaaso oo la ogaaday inay ka dambeeyeen maamulka Puntland iyadoona la doonayay in lagu dilo siyaasiyiin uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiir Jamaal iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka beeshiisa Saciid Dani ayaa wajahaya eedeyntii ugu adkeed abid kadib markii lagu eedeeyay inuu doonayay inuu baabi'iyo Beelan oo ku shireysay hotel ama maqaaxida uu qaraxu ka dhacay maamulka Puntland ayaa dhabarka loo saaray eedeynta qaraxaasi maadaama Saciid Dani loo diiday inuu gaaro magaalada Boosaaso oo maalmahan ay ka socdeen wada hadal halka uu qaraxu ka dhacay ayaa waxa ku sugnaa ama ay fariisin u ahayd ciidamo kamid ah kuwa BSF sidoo kale saraakiisha mucaaradka wasiir Jamaal iyo qaar kamid ah odayaal dhaqameedka beeshiisa Fahad Yaasiin iyo Cabdiraxmaan Dheere oo ku sugan magaalada Beledweyne iyo doorashada xildhibaanada oo lagu wada inay ka dhacdo maanta qaab noocee ah ayaa lagu wada maanta inay u dhacdo doorashada xildhibaanada ka soo baxaya gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne warbixinteena ayaan ku faaqidi doonaa xaaladda magaalada Hargeysa oo aad u kacsan iyo kacdoonka shacabka oo banaanka yimid kadib markii sicir barar iyo abaara baahsan ay saameeyeen deegaanada Somaliland qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawadayna haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena Calanka TV subscribe oo furo gambaraalka si aad u noqotid daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena mahadsanid aan ku bilaabay Ra'iisul Wasaare Roble ayaa lagu soo eedeeyay dambiyaal badan oo isugu jira inuu ku kacay gabadhfallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay magaalada Muqdisho xatooyo xoolo dadweyne iyo sidoo kale khiyaano qaran iyadoo intaas oo eedeyn ah ay soo jeedisay beesha caalamka Roble ayaa laga wacay xarunta xalan inuu ku tago asbuucan gudihiisa maadaama loo haysto arrimo ay ugu weyn tahay khiyaano qaran ayadoona baaris ku socotay 2 asbuuc lagu helay in dalka Imaaraadka Carabta uu ku soo saxay heshiis halis ku ah qaranka waxaa la ogaaday Ra'iisul Wasaare Roble inuu ka shaqeynayo sidii Soomaaliya hoos loogu celin lahaa dagaal inuu hirinayo ayaa sidoo kale cadeymo loo helay Generaal Xuud iyo isaga heshiis dhexmaray Imaaraadka iyo Kenya kuwa uu la galay iyo sidoo kale codad uu kala hadlay Ahlusunna wal Jamaaca iyo odayaal beeleed ku nool gobolka Mudug ayaa la helay warbixintan ayaa banaanka u soo baxday kadib markii warqad loo soo diray Ra'iisul Wasaare Roble ay banaanka u soo baxday iyadoona lagu eedeynayo inuu geystay gabadhfallo ka mid ah in uu ku tuntay xuquuqda dadka shacabka ah ee magaalada Muqdisho iyadoona bilo ka hor uu isku dayay inuu dagaal ka sameeyo walow markii dambe arintaas ka gaabsaday cadeymaha loo hayo waxaa ka mid ah in qaar ka mid ah saraakiisha dowladda ee doonayay inay khas ka sameeyaan magaalada Muqdisho ay sheegeen in amarka Ra'iisul Wasaare Roble ay uga baxayaan magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajona aynan aqoonsanayn beesha caalamka oo taa ka duuleysa ayaa baaris ku sameysay kulamo oo Ra'iisul Wasaare Roble la yeeshay dalalka Khaliijka Carabta Djibouti oo markaa cadab ku ahayd Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Kenya qodobadaasi waxaa ka mid ahaa in Soomaaliya uu doorashada dib uga dhigo haddii suuragal tahana uu cagaha u galiyo dagaal siyaasadeed oo daba dheeraada Generaal Xuud ayuu muddo 3 habeen ah kula shirayay madaxtooyada iyadoo la ogaaday arrimaha ay ka wada shirayeen inay ahayd in magaalada Beledweyne uu dagaal ka kiciyo magaalada Cerwaaq ee gobolka Gadow ayuu geeyay ciidamada Kenya isagoona dhaqaale u badnaa ka bixiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur kursigiisa ayuu si xoog ah uga soo qaaday magaalada Dhuusamareeb Roble waxaa kaloo loo haystaa inuu dhacay hanti dadweyne isagoona beeshiisa iska dhaafay
qoyskiisa xaaskiisa iyo caruurtiisa u dhiibay laamaha ugu muhiimsan dowladda. haddaba Rooble ayaa looga wacay xarunta Xalane iyadoona isla xisaabtan adag lagu sameyn doono. lama oga waxa ka soo bixi doona kulanka Xalane iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Rooble oo loo haysto intaas oo dambi wixii ka soo baxana barnaamijyadeena ayaa idinkuga soo wadaagi doona. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa loo haystaa ama dusha laga saaray eedan qaraxii shalay ka dhacay magaalada Boosaaso. waxaa la sheegay maqaaxi ay ku shirayeen odayaal dhaqameed ka soo jeeda beesha Wasiir Jamaal, sidoo kalena fariisin u ahayd saraakiisha maamulka ama ciidanka BSF in qaraxaasi lala eegtay. maamulka Puntland ayaa lagu eedeeyay inuu gacan ku lahaa ama saameyn ku lahaa maadaama loo diiday madaxweynaha maamulkaasi inuu tago magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Saciid Dani ayaa muddo 3 maalin ah ku sugan magaalada Qardho isagoona sugaya wada hadal ay wadaan odayaasha dhaqanka si uu u tago magaalada Boosaaso. Wasiir Jamaal oo shalay hadlay ayaa sheegay inuu saluugay qaabka uu Saciid Dani u damacsan yahay inuu u maamulo kursigiisa isagoona doonaya inuu u boobo qolo kale oo isaga taabacsan, balse odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inay garab taagan yihiin Wasiir Jamaal maadaama uu yahay shakhsi ay ku tuumayaan tayo waxtar iyo sidoo kale inuu beeshiisa wax u qaban doono. dadka deegaanka oo taabacsan ciidanka BSF ayaa sheegay inay iyaga taageerayaan Saciid Danina uusan ka soo cagadhiga karin magaalada Boosaaso isagoo aan u hoggaansamin amaradii ay soo saareen isimada boqorada iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Bari. Dani waxaa lagu wargeliyay bilo ka hor inuu ka haro xilka qaadista agaasimaha hay'adda BSF sidoo kalena uu dhaqaalaha magaalada Boosaaso dib ugu soo celiyo. DP World oo dalka iyo guud ahaan Puntland isaga ceyriyo. hal qodob oo inta kamid ah uu Saciid Dani fuliyay haba yaraatee ma jirin, si toos ahna waxaa uga soo horjeestay odayaasha dhaqanka. Saciid Dani weli waxa uu dibad joog ka yahay waxa ka dhacaya magaalada Boosaaso. doorashada Boosaaso ayaa lagu wadaa inay dhawaan qabsoonto isagoo aan weli caga dhigan. lama ogo si ay noqon doonto xaaladda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. haddaba halkaa waxaa inooga wararkeena subaxnimo. fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato janaalkeena Calanka TV, subscribe oo fura gambareelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena.